maalinta ugu dambeeyay iyo gabagabadii STEM Summit 2023 aniga iyo Dr. Abdinuur iyo Dr. Resada waxaan ka mid ahay dadkii ugu horeeyay ee barnaamijkan boorkooda ka mid noqday ilaahay ka soo fadhigeedana runtii barnaamijkan inuu hirgalo ama uu bilowdo waxa sabab u ah Dr. Resada Dr. Saadi oo runtii yani qof very dedicated oo ah oo aan aaminsanahay runtii waxay gacanta taabato mar in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu barakeynayo STEM kan ugu horeeyay oo ambassador loogu soo magacaabay inay ka noqoto arrinkan iyada oo istaagtay waxaan xasuustaa markii ugu horeysay waxaan isugu imaanay uga qayb galay iyada oo markaas wasiirka waxbarashada xafiiskiisa aan fadhino jaamacadaha waddanka loogu yeeray maadaama ay barnaamijkan cilmiga ah ay wado in badan oo ka mid ah 2017kii dadka maysan garanaynin waxa STEM la yiraahdo laakiin iyadoo visionkaas xabaarsan ee rabta in barnaamijkan waddanka uu ka hirgalo ay damacday inay la kaashato bahda waxbarashada mana socon karo runtii barnaamijkan haddii aysan bahda waxbarashada ay ka qayb galaynin muhiimadeeda ma aha waxbarashadu ama inuu ahaado jaamacado ama inay ahaado arday ama inay ahaado nin kasta oo khabiir ah ee aqoon u leh science, technology, engineering and math runtii yani shay laga maarmaan waaye in uu xambaaro waxaan aaminsanahay barnaamijkan muddada uu soo socday in uu ku socday xawli dheer waxaan aaminsanahay insha Allah ta'ala in uu ku socon doono xawligaas mid ka sii badan sanad ka dambeeya hadii Ilaahay yiraahdo hadda waxaan maraynaa 2023 hadii Ilaahay cimrigu gaarsiiyo waxaan rajaynaynaa another 5 years in meel ka sarreysa uu joogi doono laakiin taa waxay ku xiran tahay sida aan u aamino qof walba oo naga mid ah muhiimadda ay leedahay STEM adduunka ma soconaayo waxaan ku base garaysnayn science, technology, engineering and math waa asal aasaas caalamka maanta arkaysaan TikTok aad arkaysaan Facebook aad arkaysaan everything oo aad taabato ay smartphone kan haysataan asalkiisu wuxuu ka yimid STEM kulama aan STEM-ka aan horumarino kulama aan horumar gaarin marka STEM marka laga hadlo imagine wax alla wixii la taaban karo oo hore u socon karo oo isbedeli karo oo transformation sameyn kara waxay ku timid STEM marka hadaad doonto inaad wax bedesho transformation aad suubiso ama ha noqoto hawad isbedel ama cimilada waxa laga hadlayay data su'aasha taagneed climate laga hadlayay iyo dadka inay ka wareersan tahay shay roob yani goormuu soo daa runtii waxyaabaha oo waxay ka mid tahay aqoon tan haysat intay la eg tahay in aan baranno yani muxuu cimilada isbedelkeeda yani arrin aad waxaa jira inaan STEM maadaama aan ka hadlayno iyo sida ay relate ula tahay climate-ka almost hadda ilaa waxaan u malaynaa 7 sano oo ugu dambeeyay yani maalin walba haddaan xamar joogo ee badda ma misgareeyo gudub team laakiin waxaa jira yani muqdisho yani tide oo muqdisho 7 days oo ku siina ilaa bil walba tide-ka marka ugu hooseyso iyo marka ugu sareyso yani markaad gasho wuxuu ku sheegayaa maalin hebel 10 maalmood 20 maalmood xilliga ay baddu ay degan tahay xilligaas dadka aada waxay tagaan iyadoo degan ay kala soo baxaan ayagoo nabad laakiin qofka aan la soconin ee iska aada maalin walba waxaad arkaysaa in dad badan ay caruur badan ay ku la'ato ay ku qarsanaan wax kalena ma aha yani meesha ugu sokaysa monitoring oo yaala xuduudda Kenya iyo Soomaaliya ayaa ugu dhow oo sheegaya badda intay kacsan tahay xilliga roobka uu degayo yani dabaylaha haday tahay fishinkii waxaa soo idin again waxay ku mid waxa weeye STEM waxaan leeyahay Dr. Saadiyo shaqo fiican baa bilowday waan ku garab taaganahay waxaan rajaynaynaa